soo dhawaada ninkan isagoo xafiiskiisa jooga waxa uu imaaday gabadhan ay saaxiibada yihiin isla markaasna xaaskiisa intay soo wacday waxay ku dhahday waa soo socda xafiiskaaga u soo socda haddana waxa soo saarnaa wiishka isna waa kana qorshaha ku soo dhacayo si ay xaaskiisa xafiiska u imaan waraaqadan intuu soo qaato dab bushida kadib waraaqadii dabka laheed wuxuu u dhaweynaa alarmiga dabka ka digo xaaskiisina iyadii oo liftigii saaran oo ku xirmaa maadaama uu alarmiga dabku qayliyay waxay maqlaysaa marka samiicadii liftigu ku xirneed oo dhehayso dhismaha daba ka kacay marka dadka dhan ha ogaadaan isna gabadhii u imaato wuxuu ku dhahaa sida ku dhaqsiyaha badan meeshan ugu carar intay soo qoftaasi ku ark laakiin iyadu way ku adkeenaysaa meeshan intay soo fadhiistay waxay dhehaysaa waa ka xumaa meelna ma u socdi haddii aad rabtid inaan meeshan isaga tagana waxay siinaysaa $50,000 kadib meeshan waa isaga tagaa weliba lacagtaas hadeertaana ay siinaysaa kaashin waa inay ahaataa isagoo yaabana wuxuu weydiinaa $50,000 xagee ka keena xafiiska ma ii dhex taala waxay tusaysaa inay taleefankeeda 5 daqiiqo uga qabatay haddii ay ku keeni waayeen ay fashilayso isna waa kana isagoo ordaayo xafiiskii ka soo baxay si uu lacagta u soo qaado wuxuu soo aadaa dhinaca xafiiska ninka shirkadda iskale wuxuu arkaa inuu xafiiskiisa ku dhex jiro uusan cararin wuxuu rabaa inuu lacagta ka soo bixiyo qasnada taalo ninka booska ah xafiiskiisa laakiin isagoo la yaaban sababta uu carari waayo xafiiskiisa ugu soo galaa wuxuu ku dhahaa mudane dabaqan daba ka kacay marka dadkii dhan uu ku jiro way carareen adiga maxaa u carar la'dahay odaygu wuxuu taagan yahay aniga wax qiiq ah oo soo baxaya ma arkin marka meeshii iska jooga sababtoo ah aniga waxa ii taalo shaqo badan oo laga raba inaan qabto waxaan u maleynayaa inay jiraan kuwa doqomiin ah oo musqusha la galay sigaar sidaas darteed uu gambaleelka u qayliyay marka orod hadda bax oo shaqadaada qabso fulinimada inta iska daysid wuxuu arkaa midii fashil rabto tusinaysa in daqiiqo u hartay isagoo daaqada iska fiirfiirinaya ayuu wuxuu arkaa gaarigan yariiska ah oo miiska u saaran ninkii booska ahay isla markiina qorshe intuu ku soo dhaco ninkii booska ahay wuxuu weydiinaa gaarigaagii banaanka ma yaalo qof miyaa kaa qaatay odayguna gaarigiisa aad u jecel yahay wuxuu dhahaa gaarigaygii miyaa la qaatay kala xafiiriye wuxuu u raacinaa kuwa gaariga qaatay hadeer bixin waa soo qaban kartaa marka orodka gaarintiisa meel fog aadin markii uu odagu baxay intuu dhinaca qasnada soo aado wuxuu ku tijaabinaa baasweer uu yaqaana markii ugu dambeysay laakiin ma u shaqaynayo midii fashil rabtana waa tanaa intay u timaaday kana nixine waxay ku dhehaysaa ma waxaad rabtaa inay xaaskaagu ogaato wax walba oo run ah wiishkii aad haleysay wuu fiicnaan rabaa marka iyadana way ima rabtaa ma isboobsiisid baasweer fiican ku tijaabi waqti dheer kadib uu raadinaya baasweerkii gaarigii yariiska meesha saarnaa intuu soo qabto baasweerkii ka fiirfiirina ugu dambeynna wuxuu arkaa 4 nambar oo gaariga dhinaciisa gadaale ku qoran markii uu ku tijaabiyeyna nasiib wanaagiisa qasnadii way u furmeen kadib $50,000 oo ay qoftan ka rabto intuu lacagtii ka soo dhex bixiyo ku wareejina ayadana waa tanaa markii lacagtii la siiyay baraafuun camal intuu u ursatay meeshii isaga tagay isagana xafiiskii ninka booska uu lahaa intuu sidiisii ka soo dhigo iyadii ka soo dababaxa iyaga oo rabaan inay xafiiskii ka baxaan ayaa waxaa ka hor imaanayo isaga xaaskiisii waxay weydiinayaan marka maxaa idinku dhacay maxaad u ordayseen labadiina maxaa isula socoteen qoftan jaagadaada maxay u xiran tahay isagoo u jawaabi rabo ayay intee qoftan ka soo dhex gashay u sheegaysaa wax walbana way fashilaysaa isaguna ugu dambeyn wuxuu ogaanaa in xaaskiisa iyo qoftan ay walaalo yihiin oo ay isla dhasheen kadib xaaskiisa waxay dhehaysaa aniga maxkamadda waa tegay furniinkeenana mar hore diyaariyey intaasna waxay u raacinayaan inay lacagtiisa dhexda ku dhufanayaan oo ay kala baranayaan maadaama dhaqanka reer galbeedka uu sidaas yahay odaygii booskaayna waa kana wuxuu dhahaa gambaleela ii soo dhaca qofaa wuxuu isku dayay inuu qasnadayda baasweerkeeda furo kadib maskaxdiisa intay soo laabato wuxuu ogaanaa sababta oo ninkan banaanka ugu diraya inuu rabo inuu qasnada furto muuqaalkan intaanu ku ekay hadda halkaas soo gaarta leegnoo saar soo dhawaada gabadha nin ay isku shaqo yihiin ayaa gurigeeda ugu imaaday kadib albaabka gurigeeda lagu soo gargaraaca ninkii waxay ku dhehaysaa orod sariirta hoosteeda gal albaabkii la gargaraacaya markii ay furto waxay arkaysaa inuu yahay macalinka iyada jiimka u dhigo laakiin mar labaada albaabka gurigeeda lagu soo gargaraaca macalinkii jiimka u dhigayana waxay ku dhehayaan orod adigana sariirta gal midkii sariirta ku hoos jira wuxuu dhahaa soo dhawow magacayga Mike waayo qoftan shaqada isku baran isna wuxuu dhahaa magacayga Ethan waayo qoftan macalinkeeda jiimkaan ahay albaabkii la gargaraacaya markii ay furto waxay arkaysaa inuu yahay nin aysan aqoon oo degdegsan intuu ku dhaho ha qasin ayuu isagoo degdegsan guriga gudaha u soo galaa intuu meeshan istaago wuxuu ku dhahaa waxaan rabaa in aan iska baro horta marka koowaad baashan ii qaba intaan hadlaayana hadalkayga iga soo dhex gelin buugana u jeedid waa buuggii aad wax ku qori jirtay markii aad ahayd fasalka 7 maadaama aan aniga iyo adigana isku fasal ahayn buuggan waxaan ku hayo waqti aad u dheer maxaad leedahay hadda laakiin mar kale oo saddexaad albaabka gurigeeda lagu soo gargaraaca kuwii sariirta ku hoos jirana waa yaabiyiin ninkii buugga u waday waxay ku dhehaysaa orod sariirta hoos gal isna wuxuu la yaabiyaa sababta sidaas u dhehayso markii uu sariirta soo hoos galo wuxuu arkaa inay laba nin oo kale sariirta ku hoos jiraan kadib midkaana wuxuu ku dhahaa magacayga Mike waayo qoftaana shaqada isku baran midkaana wuxuu u sheegaa inuu yahay macalinkeeda jiimka isna wuxuu dhahaa qofta waxa isku baran iskuulka isku fasal ahayn 7 macnaha kadib midkaana saaxiibadiis wuxuu ku dhahaa waxaan xiiseynaa midka albaabka gargaraaca meesha isku barteen albaabkii la gargaraacaya markii ay furto waxay arkaysaa inuu yahay baadiriga kaniisada ay tagto wuxuu u sheegaa inuu meeshan u imaaday inuu iyada ogaado xaaladeeda maadaama is ayaantan imaanin kana wuxuu taagan yahay qofkan u imaadayo noo ahay si wanaagsan ay ula hadlaysaabe odaygii baadiriga ah markuu guriga gudaha u soo galo gabadhii wuxuu weydiinaa ayaantan maxaa u imaan weysa maxaa u maqnay
iyada oo u jawaabi rabto ayaa mar kale oo afraad albaabka gurigeeda lagu soo gargaraaca. odaygii baadariga ahaa ayay waxay ku dhehaysaa sidaan inaan ku dhahay ma rabin, laakiin adigoo mahadsan sariirta hoosteeda ma geli kartaa hal mar. odaygii markii uu sariirtii soo hoosgalo wuxuu arkaa in 3 nin oo kale ay meesha ugu soo horreeyeen. midkaana wuxuu dhahaa magacayga Mike waaye, shaqada dhinaceeda ka socda. anigana Ether aan ahay dhinaca jiimka ka socda. anigana Alex dhinaca iskuulka ka socda. odaygu kuwaan wuxuu u sheegaa inuu yahay baadari uuna kaniisada ka imaaday. gabadhiina markii ay furtay albaabkii la gargaraacayay waxay arkaysaa inuu yahay ninkeedii saxda ahay. markii uu guriga gudaha u soo galo wuxuu arkaa alaabtii ay wateen nimankii isaga ka horreeyay. kadib xaaskiisa wuxuu weydiinaa waxaan maxay noo ahaayeen, ma waxaa jira qof qaraabadaada ah oo kaa dhintay. isla markiina waxa intay u soo uraan wuxuu weydiinaa mar labaad cabitaankan ii soo uraayo muxuu ahay, runtiisa waayana midkaana cabooyo. mar kale oo shanaad ayaa albaabka gurigeeda lagu soo gargaraacay. intay jiniyaal qof ay ku soo degeen iska dhigtay ninkeeda waxay ku dhehaysaa sariirta hoosteeda waa inaad gashaa intiisa jiniyaasheeda soo wada degin. markii uu ninkii sariirtii soo hoosgalay midkaana wuxuu dhahaa Mike from job, Ether from gym, Alex from school, Patrick from church. midkaan isagoo nimankan isbari rabo ayaa midka kale wuxuu ku dhahaa hanoo sheegin, waana qaanaa waana maqalnay inaa ninkeeda saxda tahay. iyadii markii albaabkii furtay waxay arkaysaa markaan qofka albaabka gargaraaca inuu gabar yahay. iyadoo xanaaqsan ayay intay gudaha soo gashay waxay dhehaysaa ninkayga GPS-kii igu xirnaa wuxuu sheegaa inuu meeshan joogay qiyaanuhaas ii soo bixi. xariifkan wuxuu taagan yahay xaaskaygii waaye. mar kale oo lixaada ayaa ta albaabkii lagu soo gargaraacay. gabartii u timaada waxay ku dhehaysaa waxaa laga yaabaa ninkaaga inuu sariirta ku hoos jiray ka fiiri. sariirtii intay soo hoos gashay ayaa ninkeedu wuxuu ku dhahaa waa ku salaama xaaladaada ka warran. iyaduna waxay weydiinay maxaa ku dhaca meeshan maxaa uga buuxdeen. markii ay albaabka furtay waxay aragtay inuu nin boolis yahay. kadib wuxuu ku dhahay dariska qaylo darteed kaa soo dacwooda ee gurigaaga waa inaa baaraa. intuu arko in guriga laga buuxo ayuu wuxuu dhahaa dhammaantiin xabsiga idin geena. muuqaalkan intaas ka dalka soo gaarta lagnoo saar. naagtan iyadoo jiifto nimankan intay u imaadaan ee wejiga uga falfalaadayaan. kadib waatana iyadana way soo kaceen. midkana ninkeeda waaye wuxuu ku dhahaa isdeji sabraysa ku hayaaye. iyadana waxay dhahay sabrayska ka sheekeynaysa maxaa waaye midkan iyo noo ahay. isagana wuxuu dhahaa ninkan iska baro waa dhakhtarka qalliinka ee ugu fiican adduunka. waxay dhahay marka dhakhtarka qalliinka ka sheekeynaysa maxaa waaye meeshaan muxuu ka sameynaa. isagana wuxuu dhahaa aniga qalliina raba inaa kugu sameeyo si aad dhalinyaro u noqoto. iyadana waatana weydiidaysaa. isagana wuxuu ku dhahaa maxaa u diiday caadi iska dhig, ani waxaan rabaa weji qurux badan inaan kugu sameeyo. waxay dhahay sida aniga ahay waa ku qanacsanahay. waatana marka intay soo baxday wixii u mariyeen iska tirtiree. ninkaana ma ka harayo waa kana intuu ka dab imaado sawirkan tusinaa wuxuu ku dhahaa sidaana u ekaanay haddii qalliinka lagugu sameeyo. sidoo kale ninkii dhakhtarka ahay intuu u imaado sawirkii tusinaa wuxuuna ku dhahaa sidaan waxaa ku noqonaya muddo 1 bil gudaheeda. iyadana ugu dambeyn way ku qancinayaan wayna ogolaanee. sawirkii la tusayna way ku qancee. ninka dhakhtarkaana wuxuu dhahaa biriba waa bilaabaynaa qalliinka. nimankaana markii ay baxaan gabadhan waatana way soo tegay. waxay imaaneen maqaayad gurigooda u dhowaay. gabadhan kalena waxay u keenay shaaxi ay ka dalbatay. waxay arkeen marka gabadhan shaaxa u keenayso iyo sawirkii la tusaayay inay isku eg yihiin. waatana marka sawirkii soo bixinee waxayna isku fiirinee sawirkii iyo gabadhii wayna isku ekaanayaan. iyada oo yaabanay waxay u wacay gabadhii shaaxa u keenaysay. iyadana waatana way u imaaneen. kadib waxay ku dheheen maxaa kaa caawiyaa. waxay dheheen caawimaad ma u baahni ee waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo. iyadana waxay dheheen su'aal waa i weydii kartaa waa kaaga jawaabaye. waxay dhehaysaa marka Patrick John ma taqaanaa. midaana waatana intay xanaaqday waxay dheheen midkaas saaxiibo hore ahaa jirnay. intaas kaliya ma u ekeenaysa ninkaas intay qabatay kal iyo laab u caynaysaa. midaan kalena waatana indho kaliya ka soo haray. kadib waxay ku dheheen waa kaa raali gelinaa maadaama kaa xanaajiyey. gabadhaana waxay dhehaysaa laakiinse su'aashaas adiga maxay aniga ii weydiisay. midaana waxay dhehaysaa su'aashaas wax kale ma kuu weydiin, laakiinse asaga Patrick ninkayga waaye isaga anigana intaas kaliya ha kuu weydiiyey. waatana marka arrintii 2 bilooda ka soo wareegatay adigana muuqaalka leeg saartay. gabadhiina waatana kadib wejiga markuu 2 bilood u xirnaay waa laga furaa. gabadha wejiga markii laga furo ninkeeda wuxuu dhahaa hadda waxay u ekaatay gabadha rabay. iyadana waatana waxay dhehaysaa gabadha rabtay inaa u ekaadayay noo ahayd. qaybtii koowaad waxay noo maraysay gabadhaan oo dhehayso naagta rabta inaa u ekaadayay noo ahayd. isagana wuu ismashquulinaa. miyaaradaanu intuu u soo qabto wuxuu dhahaa isfiiri sidaa u ekaatay. ninkii dhakhtarkaayna wuxuu dhahaa waani salaama waa sii baxa. habeenkii markii la gaaray gabadhii waatana kaamirey soo qaadanee. isagana intuu qoslo wuxuu dhahaa kaamirada maxaa u soo qaadatay. iyadana waxay dhehaysaa kaamirada waa iska jeclahay. waatana marka iyagoo wada sheekaysanayay kaamira ka duubaysaa. intaas kaliya ma u ekeenaysa waraaqada inta soo qabatay ku tuuree. waxay dheheen waraaqadahan saxiix. isagana waa kana isagoo yaabana wuxuu dhahaa waraaqadahan waraaqadihii furriinka waaye laakiinse maxaa sidaan u sameynaya. iyadana waatana intay miimarigii kaamirada ka soo bixday waxay dheheen sababtoo ah xaaskaaga qiyaantay. isagana wuxuu dhahaa xaaska ka sheekeynaysiya noo ahayd. kadib ninkan xaaskiisii saxdaheeda luuqan ka soo baxaysa waxay dheheen shaqo fiicanaa qabatay. isagana waa kana indho kaliya ka soo haraayo. wuxuu dhahaa marka taas waxay ka dhigan tahay qoftaan waa qofteydii hore. iyadana waxay dhehaysaa haa aniga waaye. adigana xaaskaaga waa aqoonsan weeday sababtoo ah naftaada lee ka fikirtaa. isagana intuu soo istaago wuxuu dhahaa qof yahay sidaa u malaynaysid maahan. iyadana waxay dhehaysaa laakiin sidaa u malaynaya dhacday. waxaa rabtay inaa extaada u ekaado. kadib
waxaa ku fikirtay in aniga muuqaalkayga bedesho adiga bis waayay dhehaysaa waa soo waalatay inaad dhakhtar u tagtaa u baahan tahay midaana waatana waxay dhehaysaa waqtiga ciqaabtaada la gaaray isagana waa kana intuu ku qoslo wuxuu dhaha ciqaab ma idhahdeen kadib markaa muuqaalka leeg saartay ninkan intuu waraaqada soo qaato wuxuu dhaha idinka waxaa tihiin shactiroolayaal anigana shactirada waa iska jeclow dhaha haddana waxaan waraaqadaha saxiixaya ma lehe iga qabsada anigana aqliya isticmaala dhakhtarkii ila shaqaynaya waxaan iga xalinayo dhaha midaana waxay dhehe dhakhtarka maa dhahday gabadhii intuu soo jeesatay waxay dhehe dhakhtarka qaraabo soo matihiin war ninkaas dhakhtarka ah ku tashanay ku dhehaysaa annaga dhinaceenna waaye waxaan inaad samaysana markhaatiyo ka noqonaa maxkamadda kugu caddeynaa isagana wuxuu dhaha dhakhtarka hadda inuu magaalka ka baxaa maqlay caddeyn xaggaa ka keenay midaana miimarigii intay soo bixisay waxay dhehe sidaas haday tahay kanaan anfacayo wuxuu dhaha marka arrintaanoo dhan maxay iigu samaynaysiin iyadana waxay ku dhehaysaa waxaanoo dhan in lagugu sameeyo waa u qalantaa midaana dhinaca caayaday ku fiicanta waxay dhehaysaa dooli biyo ku dhex dhaco oo eygeenaga keen waa kana markii ayagii baxeen midaana soo laabanaysa waxay ku dhehaysaa waxaa kuu sheega 3 saacadood aad haysataa alaabtaada dhan waa inaad gurigayga ugu aroorsataa ninkan maskiinka isagoo meeshaan iska fadhiya waxa uu imaanaa ninkan kale kadib ninkan maskiinka lacagtii uu haysto ka qaadanaa boorsadiisa ku ridanaa waa kana marka meeshii isaga soo tagaa ninkii maskiinkaana waa kana ninkii lacagta ka qaato ka soo daba ordaa kiina sida uu soo socdo waa kana hotelkan soo galaa ninkan maskiinkaana waa kana ma ka yeelay hotelkii uu ka soo daba galaa laakiin ninkan waardiyaha qabanaya kadib wuxuu ku dhahaa meeshaan ma degantaa isagana mayu dhaha meeshaan isaga tago ku dhaha marka ninkan maskiinkaana wuxuu dhahaa ninkaas u jeedida lacag iga soo xaday kan waardiyana wuxuu ku dhahaa waa kaftamuusa u maleynaa meeshaan iyaga oo wada doodaya waxa arkay gabadhan kadib waa kana uu iimaanay waxay dhahay aniga xalinayo adiga iska bax ninkii waardiyaha markuu baxay ninkii miskiinka waxay ku dhahay ninkaas inuu lacag ka soo xaday ma iga hubtaa isagana wuxuu dhahay yaami ninkaas lacagteedii iga soo xaday waxay ku dhahay marka sidaas haday tahay sida boorsidiisa loo soo baari lahay aniga aqaano adigana meeshaas ii sii fadhiiso aniga ku soo laabanayo waa kana markii uu meeshii soo fadhiisto waxa arkay xariifkan Shiineeska oo journalka akhrisanayo kadib uu salaama laakiin midkan shaaxiisa uu cabsanaa in looga yaaco waa kana marka uu jiidana gabadhiina waa tan ninkii lacagta soo xaday u tagay kadib waxay ku dhisay lacagtan ma ii bedeli kartaa sarifaa rabaaye isagana waa kana ninka miskiinka lacagtii uu ka soo xado soo bixinaa wuxuu ku dhahaa waa tan sarifkana ma u baahni ee adiga qaado ku dhahaa kadib waxay ku dhahay lacagtan xagaa ka keenta jeexjeexan isagana lacagtii intuu ka dafo wuxuu ku dhahaa midaas shaqadaada maahan kadib waxay ku dhahay lacagtan waxay u egtaa mid la soo xaday isagana wuxuu ku dhahaa boolis miyaa tahay iyadana waxay dhahay boolis miyihi laakiin booliska waa wici karaa waaba ka xishoonaya dhehaysaa inaan la hadlayo nin dadka masaakiinada darbi jiifida lacagta ka xadayo isagana wuxuu dhahaa ninka hotelkan leh inaan la kulmaan rabaa kadib wuxuu ku dhahay inuu waqti ku hayo miyaa u malaysaa wuxuu dhahaa marka wiilkiisa waqti u sameey karaa haday sidaas tahay kadib gabadhan waxay ogaanaysaa ninkii ee hadda la hadlaysay inuu yahay ninka hotelka iskale wiilkiisa adigana inaa muuqaalka leeg saarto ma hilmaamaysid ninkii odagahana waa kana wuxuu dhahaa wiilkayga muxuu sameeyey iyadana waxay dhahaysaa wiilkaaga nin maskiin oo lacag ka soo xaday odaygana wuxuu dhahaa shaqadaas ma bilowday inaad dadka masaakiinta lacagta ka soo xado war hadda waa baxaysaa dadka martideen ahna waa soo raali gelinaysaa oo ku dhahaa isagana wuxuu dhahaa war midkaas marti maahan derbi jiif waaye anigana $2 ka soo qaato ku dhahaa odaygana derbi jiif markii oo maqlay wuxuu dhahaa derbi jiif ma ay dhahdeen waa kana marka uu qoslaa wiilkiisana uu ku qoslaa asigana wuxuu dhahaa marka waxaan marka ii soo sheegaysid waxa ii sheegtay ma weysay iyadana waxay dhahaysaa ee wiilkaaga nin masaakiin oo lacagtiisa ka soo dhacay odaygana wuxuu dhahaa midaan hotelka dhexdiisa maysa ka dhicin soo maahan wuxuu dhahaa wax kasta oo dhacay intaas shaqadaada ku dhex jirto weliba hotelka banaankiisa taas shaqadaada ma ahayn uu dhahaa waa inaad ka dhamaataa ninkaas derbi jiifkaana hadda waa inaad banaanka iga bixisaa oo ku dhahaa iyadana waa tan iyada ku qanacsanayna haye iska dhehe kadib lacaga inta soo bixisay jeexday ninkii miskiinka u geynay waxay dhahay lacagtaada waa tan qaado wixii kugu dhacayna waa kaa raali gelinaynaa ku dhahe isagana waa kana intuu lacagtii soo celiyo wuxuu dhahaa lacagtiidii tan maahan sababtoo ah dhinac qaldan ay ka jeexan tahay xoogaa kadib labadan gabdhooda imaanayo kii lacagta soo xadayna wuxuu taagan yahay misraacna cabitaan musoo cabnaa iyagana waa kuwana waxay dhahayaan nin masaakiin oo derbijiifa lacag laga soo xaday cabitaan muku cabno kadib intay ku qosqoslaan ay ka tegayaan xariifkan ciil dartiisa wuu qarxi rabaa